sirdoonka Mareykanka oo kashifay arrin weyn. Ruushka iyo Iran ma bilaabeen isbahaysi cusub. Haddaba daawadayaal sida uu qoray wargeyska caanka ah The Washington Post isaga oo soo xiganaya ila ka tirsan sirdoonka Mareykanka oo codsaday inaan la shaacin magacyadooda ayaa waxaa la sheegay in Ruushka uu Iran siiyay xog aad u xasaasi ah oo ku saabsan bartilmaameedyada ciidamada Mareykanka ee ku sugan gobolka. Xogtan ayaa la sheegay inay ka mid yihiin goobaha isgaarsiinta militariga iyo dhaqdhaqaaqa diyaaradaha Mareykanka ee ku sugan Bariga Dhexe. Haddii wararkan ay dhab noqdaan waxay horseedi kartaa isbedel weyn oo ku yimaada qaabka dagaalka maadaama ay ka dhigan tahay in mid ka mid ah awoodaha ugu waaweyn ee la tartamaya Mareykanka uu si dadban ugu lug yeeshay khilaafka ka socda gobolka. Warbixinadu waxay sidoo kale tilmaamayaan in Iran aysan lahayn nidaam dayax gacmeed casri ah oo si madax bannaan u soo saari karo sawirro sirdoon oo aad u sax ah. Laakiin sawirrada dayax gacmeedka ee Ruushka ayaa noqon kara ayaa la leeyahay buundo sirdoon oo siinaya Iran awood dheeraad ah ay ku beegsato bartilmaameedyadeeda. Falanqeeyaal badan ayaa aaminsan in taageeradani ay sharxi karto sida ay ku kordhiso saxnaanta weeraradii Iran ee dhawaan dhacay, kuwaas oo la sheegay inay awood u yeesheen inay ka gudbaan qaar ka mid ah difaacyada hawada isla markaana ay beegsadaan goobihii xasaasiga ahaa. Dhanka Ruushka qaar ka mid ah khubaro waxay u arkaan arrintani fursad uu Ruushku uga jawaabayo taageerada weyn ee Mareykanku siiyay dalkaasi Ukraine oo ay dagaal kula jirto Moscow. Sidoo kale xiisadaha gobolka ayaa kor u qaadi kara qiimaha shidaalka iyo gaaska taas oo u noqon karta faa'iido dhaqaale dalkaasi Ruushka. Si kastaba ha ahaatee Kremlinka ayaa si cad u beeniyay arrintani. Afhayeen u hadlay Kremlinka ayaa sheegay in Moscow aysan helin wax codsi gargaar militari ah oo yimid dhankaas iyo Tehran. Dhanka kale madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa bixiyay jawaab taxadar leh kadib markii wax laga weydiiyay warbixintani isagoo aan si toos ah u xaqiijin ama aan u beenin. Ugu dambeyntii marka la isku geeyo warbixinada sirdoonka iyo sida ay arrimuhu u muuqdaan waxaa suuragal ah in waxa ka socda daha gadaashiisa ay ka weyn yihiin waxa sida cad loo sheegayo.